بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn dacalada adduunka meel kasto aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiini ku bahawday Southern Media Corporation walba idin siiya ama idin siiya xaqiiqooyinka ugu dambeeyay ee geeska war badan uma aanan soo galin waxaan u soo galay in aan idin la wadaagno xaaladda meesha ay marayso dagaal ayaa ka qarxay oo haatan ka soconaya yaaqbari weyne iyo aagaasi degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan ee Maryland dagaalkaasi waxa u dhaxeeya daawadayaal dadka u dhashay reer Maryland ee degmada Walaweyn iska leh iyo hareeraheeda iyo mooriyaanta soo duushay ee Salbalaar tuu ka timaaday ilaa iyo Galmudug ilaa iyo Hirshabeelle oo waayii u dambeeyay isku soo urursanayay meeshaasi ayuu u dhaxeeyaa daandaasi dheer kadib walaalow iga har kadib macnii dhibaatayn iyo kufsi iyo dhac iyo macnii nidaam dawladeed oo wax ka qaban waayay kadib markii oo saraakiishii meesha joogtay oo dhammaantood Hirshabeelle iyo Galmudug ka soo jeedo oo Salbalaar ah macnihi ay iyaguba dagaalka hormood ka yihiin oo ay abaabulayaan kadib waxa reer Walaweyn ay go'aansadeen in ay dagaal ku camimaan macnii isbaaraystayaasha gabdhooda kufsa oo ma arkaysa macnii dhiigga macnii reer Maryland maalin iyo habeen iska daadinaya walaalayaal dagaalku waxa uu bilowday saacadda geeska Afrika ee Jamhuuriyadda Barakaysan markay ku beegnayd kowdii duhurnimo ama 13 saac qofba sidoo u yaqaano salaada duhur markay ku ayuu dagaalka bilowday dagaalkana waxa uu ku bilowday sababta waxa weeye ciidamo ka yimaaday maalmihii u dambeeyay ka imaanay Hirshabeelle oo ma arkaysa macnii daayir amiin jeeso ku beel ah iyadoo reer Galmudug kale ay baritaarayaan ama ay baritaageerayaan ayaa macnihi waxa ay isbaarooyin horle ay soo dhigteen iyadoo sidii lagu heshiiyay ka booday oo xataa macnihi gudoomiyaha maxkamadda markii Walaweyn uu imaanay macnihi xal mastuur uu ka dhigay in isbaarada iyo nawaaxigeeda oo askarigii ama qofkii isbaaro isku daya inuu dhigto toogasho la wada seexay labada dhinac oo ogtiin marar badan inay jabiyeen xabad joojinta qoliyaha aan u dhalan waxay isbaarooyin soo dhigteen oo hor leh macnii deegaanka Walaweyn iyo nawaaxigeeda oo macnii lagu dhacayo dadka Maryland lagu kufsanayo gabdhaha Maryland macnii dadka wixii hantidooda la isaga boobayo macnii in ay guntiga dhiisha isaga dhigaan isbaarooyinka inay iska qaadaan isbaarooyinka dhigtay ee cusub waa kuwii hadda jadiida oo freshta loo soo sheegay dad la dhici karo la boobi karo oo macnii wax walba lagu samayn karo la iska kufsan karaa macnii Shabeelle taa iyadoo ay ka dabaaqtamayaan isbaarooyin hor reer Walaweyn dagaal ay ku camiyeen isbaarooyinkii iyo isbaaris Salbalaar ee soo duushay kowdii duhurnimo ee xabadda ku liseen iyadoo ma arkaysa qorraxda ay kulushahay inaan la waa la gacmo qabtaa oo nidaamka dawladnimada lagu dilaa mooyaane macnii waan kowdii duhurnimo 30 daqiiqo kabahirig way la wareegeen kabahirig waa isbaaro macnii ay fadhiyeen nimanka soo duulay ee Hirshabeelle ka soo duulay oo Salbalaarta ah macnii isbaaro ay fadhiyeen oo degmada Walaweyn Jamhuuriyadda Barakaysan ee Maryland bay ahayd isla markii kabahirig macnii waa laga qaaday gacanta ayaa lagu dhigay waa lagu kala baxay annaga hadda daynuna SMC iyo jugta culus waxaan idin cadaynaynaa in kabahirig isbaaradii tiilay ee Salbalaar ay dhigteen in lagu kala baxay oo dadka Maryland ay gacanta ku hayaan saacadaasi la taagan yahay dagaalka
kabahiri kaliyu ku ekaaday maya way dhaqaaqeen ciidamadii geesiyiinta Mayland ee boomayaasha gaagaabnaa balaayadu ka dhacday oo birjaxa oo macnihii ishoodu farta aan gelin oo walaweyn u dhashay way sii dhaqaaqeen waxay u dhaqaaqeen inay yaaqbari weyne oo macnihii godka weyn oo isku urursadeen macnihii nimankan soo duulay dhulka aan lahayn in ay weerar ku qaadaan rasaastana hadda waxay ka socotaa yaaqbari weyne oo ka tirsan degmada walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose dhulkaasina uu iska leeyahay ama ay iska leeyihiin dadka reer walaweyn ee u dhashay Mayland oo waliba yaaqbari weyne baabuurta gabdhaha macnihii kunoo baabuur lagu celiyay ayaan dhawey oo u sii socday gobolada mayga ballaaran ilaa xuduudda Itoobiya ma arkayse macnihii qaarna u socday caasimadda Soomaaliya oo goboladaas ka yimaaday xabadda hadda meeshaas ay ka socotaa kolley inagu wariyaal baan nahay wixii soo kordha waan idinla wadaagaynaa haddii Allah awoodda leh uu ka raali noqdo laakiin warkaasi degdeg ah dagaalka wali wuu socdaa dhimashada inta ku dhimatay inta ku dhaawacantay inta macnihii ku waxyeelowday dib ayaan ka soo sheegi doonaa dabcan meel dagaal uu ka dhacayo dhimasho way imaan kartaa way imaan karaa taa iyada faahfaahinteeda dib aan ka heli doonaa laakiin hadda macnihii nimankii waa la jabiyey waa la bursanayaa kabahirig waa laga qabsaday oo isbaaradii waa laga qaaday waa la sii buriyey yaaqbari weynay ku dhufteen yaaqbari weyne xabadda way ka socotaa ilaa xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Bay uu la leeyahay inay soo xaqiijiyaan walaweyn waxay leedahay wiilashii boomayaasha gaagaabnaa waxay yiraahdeen macnihii wax kasta haddii la sheego dhulkanagu mana lagu gorgortan ma galo qofna kulama gorgortamayno macnihii dhulkan walaweyn hoos imaanaya 557 tuulo ee degmada walaweyn hoos imaanaysa ama hoos imaanayaan qof loo daba fariisanayo oo macnihii aan may ahayn ma jiro waxayna yiraahdeen annaga iyo reer Buurakaba macnihii cidna soo dhex gali karta oo soodin ah oo Soomaali kala ah ma jiri karto Buurakaba iyo walaweyn cidna uma dhaxayn karayso xataa may kale uma dhaxayn karaayo iskaba dhaafay Salbalaar iyo kuwa Galmudug iyo Hiirshabeelle ka soo walaalayaal xaaladda meeyay maraysaa laakiin waxaa la yaab leh maayow Soomaaliyay waxyaabaha la yaab kale oo mar dhow idaacadaha aad ka arki doontaan sida looga bartay raalli ahada sida looga bartay